shacabka ku dhaqan caasimada magaalada Jigjiga ayaa soo dhaweeyay saami boqolkiiba 50 deegaanka uu ku leeyahay gaaska dabiiciga ah ee dhawaan deegaanka laga daahfuray wejigiisa koobaad. Shacabka ayaa sheegay in saamigan boqolkiiba 50 uu yahay mid ku habboon deegaanka Soomaalida. shidaalkan la soo saaray dhammaan waan bogaadinaynaa waxaan ku mogaadinaa boqolaal sano unbaa lahaa shidaal baa laga soo saaraya cagaar weyne ilaahay la silaasay ilaa intii ka horreysay shidaal baa la soo saaraya waliin shidaalkii oo la soo saaray alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahayna soo gaarsiiyey maasha Allah waxa weeyaan boqolkiiba boqol ayaan maanta u hambalyeynaa kontonkan ma garanaysaa la siiyey ee la yiri deegaanka leh Itoobiyada kalena kontonkan kale ay leedahay dhammaan intaba waxaan ku leeyahay hambalyaan leenahay waa shidaalkii oo deegaankayaga ka soo baxay waan ka badanaynaa shaqaalahan leenahay aqoonyahankan leenahay innaga deegaankiya innaga wax kastaba ku qabsanay boqolkiiba boqol baan ayaan magaranaysaa hambalyaan leenahay annaga oo la siyaaban wadooyinka sida la yiri bay haddana waxa soo biiray mashaariicdii oo mugle baa haddana soo biiray boqolkiiba 50 kana waa soo dhaweynaa dee waxaanoo mashaariica ee wadooyin leh ee wax walbalaba dee waxay ahayd miisaaniyadda Itoobiya baa soo goynaysay dee taasi jirto oo miisaaniyadda lagu horumariyay waddanka tiyo jirtay baa haddana shidaalkii noo soo biiray aad baan u hambalyeynaa waxa kale oo soo dhaweynaa warshadaha soo biiray ee gaaska lagu sifeynayo dhulka iyo goday warshada looga dhisayo iyo warshada kale bacriminta inta waan soo dhaweynaa shaqaale badan bay yeelan doontaa shaqaalaha ummadda deegaanka noqon doontaa iyo cid kastoo Itoobiya iyo cidii aqoon leh shidaalka inoo soo baxay in ku leenahay percentage kana boqolkiiba 50 kalena aan leenahay Itoobiya waa arrin aadan soo dhaweeyno waa farxad waa horumar waa waxaan muddo dheer filaynay inaan helo alxamdulillah rabbil caalamiin baan leenahay waa meel soo dhaweynadii Jigjiga waxaan joogay oo Soomaali 3 nin dawladda u shaqeysa 3 nin Soomaali oo dhan Jigjiga dawladda ay 3 nin ay u shaqeyso maanta oo nimcada muuqata jidadka wadooyinka guryaha quruxda badan leh dhalinyarada gaadiidka cadcad shidaalka wax waliba u dibadda yaallo wax Ilaahay loogu mahadnaqa weeye waxa kaloo Ilaahay ugu mahadnaqaynaa maadaama shidaalkii boqolkiiba 50 layna siiyey 50 gaadhayna percentage-keena aan ku leenahay waa Ilaahay mahadii waxaan dhalinyarada ku waaninayaa inaad hagaajisataan inaad barwaaqada Ilaahay ugu mahadnaqdaan inaad mataqaanaa nimcada hagaajisataan intaasaan idinku buurinayaa waa boqolkiiba boqol waa macnaha boqolkiiba 50 haddaan helay waa wax filan waa la siiyay bilaash baa loogu shaqeeyay baan dhihi karaa macnaha bilaash baa loogu shaqeeyay lacagtii iyo hantidii iyo xoogii galay soo saarinta shidaalka oo haddana boqolkiiba 50 aan ka helay waa wax aad iyo aad loo soo dhaweeyo lagu farxo waa waxaan filaynin maasha xoolaha galay maal baa galay juhdi badan baa galay kambaligi ka shaqeeyay wuxuu qaatay iyo dawladda federaalkeed haddaanu boqolkiiba 50 ba helay waxba lagama qaadaninba waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan arrinta abaal ku qabnaa maasha Allah waxaan ku leeyahay waxa soo gaadiido Itoobiya leedahay wadankeedii looga soo saaray shidaalkii boqolkiiba boqol weeyaan hambalya ayaanu leenahay shidaalka soo saaray waan hambalyeynaa dhammaan meel kasta oo waxaan ku leeyahay hadday qurbo joog tahay hadday dal joog tahay dhammaan hambalyaan leenahay dalka waa lagu soo noqon waa la dhisi wadiga arkayaba horumarka magaalada ka socda hadday dariiq tahay hadday fooq tahay dhammaan dhulkoo dhan gaari wuu isbedelayaa reer Yurub buu noqonayaa dhulku mar hadduu shidaal ku darsamay reer Yurub buu noqonayaa dagaal la arki maayo isqabsi la arki maayo dhammaan dadku shaqo iyo sidaas Sacuudiga ilaa magaranaysaa Yurub oo kale saamu dadku dhammaantood magaranaysaa shaqo ugu jeesanaya wax isqabsanayo ama madax daba socda ama shaxaad daba socda la arki maayo boqolkiiba boqol baan leenahay hambalyo sida libaax baa loo qaybsaday 50 oo halkaa yaala iyo 50 kale isaguna wax laynoo ogol yahay oo dakhligeennii kale federaalka ku biiray aad baan soo dhaweynaa
وأرين صدح جبار ويان هرمركا وقت بان لا سوي مدحوينها iyo ra'iisul wasaaraha iyo intii kala shaqeynana waanu mahadnaqaynaa sida warshada fertilizer-ka sameynaysa warshada electronic dabka dhalinaysa dhammaan wadooyinka waaweyn ee socday laamiyada u badan waa waxyaalo badan soo dhaweyno iyo xireenada gidibka Abay Wanzi ee maatay mashruucan weyn Abay Wanzi isna soo noo dhaqan galay waa mid aan aad soo dhaweyno dhamaantoodba ما شاء الله iyo koridharada magaalada Jijjiga ka socda mashaariicaha kale ee badan ee la dhagax dhigay ee mataqaanaayay iyo kuwa xariga laga jareebana aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa wajawaad wajiga labaad ee dambe ama mashaariicaha la dhagax dhigayo waxaan leenahay hambal wax soo korray oo deegaanka u soo korray deegaanka wax warshado oo lagu aaminayay ma jirin haba yaraatee deegaan markii masaajidka ammaan uu noqday baa lagu agaamay Itoobiya dhamaanteed waxaan leenahay hambal ayaan leenahay mashaariicaha soo korray kuwa kalena way ku xigayaan hambal yaanu leenahay كل مجواد والضبع حتى له هلا وديان كل اللي قالوا والشدان كود الأركينا أنا قاعد عمل كل ولا حنا لنا خليك تعالوا أنا التعريب إيتا بدنا كل عيسى وحكى خير بدل أنا وحنا واحد بدل ما نكون شعر رولي صار له لبعض تيسنا للأولى انتظار يقول